waxaan mikrofoonka ku wareejinay hadduu ilaahay yiraahdo Bashiir Shaafi wasiirka ganacsiga iyo warshadaha si uu u dhameystiro oo maadaama xiriir ka dhaxeeyo wada shaqeyn xafiiska qurba joogtii maalgashiga asagana Bashiir Shaafi wasiirka bal inuu asagana qaybta ganacsiga uu ku hadlo ila soo dhaweeyay Bashiir. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد بان إذن سلام يا مركبات مركب لبعض وحان إذن كم هذا علنا يا سيد وناكسن شربت له قيمة هي قدرين تمضن النوس اللويسين وقتي نقاليها نوص هرتين يضع أمور بأجنة هاي ضدك قاركود إن أي كلمة دين مقالوين أذففك oo sida ay sheegan qaarkood 7 saacadood iyo ka badan ay soo socdeen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin wax kalena meenay dadkaasi u meenay soo dhaweynta anada iyo inay nala joogaan waqti naga qaataan wixii hawlana weydiiyaan ay ugu badnayd waqtiga ay noo soo horeen iyo safarka ay noo soo galeen aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa si noqodkiina idinko nabad inuu Ilaahay gurihiina idin nabadgeliyaan idin rajaynaa insha Allah ana wax badan kama hadlayo waan soo gaabini sababtoo ah waqtiga oo iska yar xilligii loogu talagalay inaan bilowno barnaamijka oo aan ka dib dhacnay hadallada oo laga yaabo in xogaa dadka qaarkood ay xagga dambe ay joogaan ay sugayaan walaalahay mas'uuliyiinta kale hadli doona waxaan rabnaa idinka qudina shacabka inay hadlaan qurbo joogto oo qaarkood hadli doonaan si marka ay isu wada gaarsiina dhamaanteen dadka hadlaya ama qurbo joogta haato odayaasha xagga haweenka dhinac kasta dhalinyarta iyo yaan soo gaabin doona hadalkayga arrimaha ganacsiga ayaan wax yar aanu ka tataaban insha Allah saan wada ogsoonahay dhamaantiin ganacsigu waa laf dhabarta horumarka deegaanka ganacsigu waa shayga koobaad ee ummadi ay ku horumarto ummadi kuma horumarto mushaar la qaato wiil la shaqaaleeyay ruux la magacaabay ruux mas'uul loo dhiibay ummadi kuma horumarto ummadu waxay ku horumartaa dhaqaalaha ay soo saarato waxa ay dibadda u dhoofiso iyo inay iyadu cunto oo isku kaafido waxa ay soo saarato waa waxa ugu muhiimsan ee ku horumarto ganacsiga waa shayga u badan ee canshuuraadka dakhliga ay dawladda leedahay laga soo xareeyo dakhliga ayaa waxa lagu dhisaa hospitaallo iskuulo ceelal wax kasta wadooyin dakhliga ayaa lagu dhisaa marka si ganacsigu uu u noqdo mid taabagala ayay xukuumaddu qaadatay in xoogga la saaro arrimaha ganacsiga ganacsigu hadda ka hor deegaanka wuxuu ahaa mid monopoly ah ama cid ay iska haysato kali ah ganacsiga deegaanka wax kasta oo loo baahdo dadku ma aynan la soo wada degi karinin haddaad u baahato inaad raashin keento inaad saliid keento inaad biyo keento inaad waraaqo keento dad bay u wada xidhxidhnaayeen qiimo qaali laga iibin jiray say doonaan oo meena heli jirin marka arrinkaas waxaan dhihi karaa si toos ah iyo si dadbanba waxaa deegaanka saaray cunaqabatayn xagga nolosha ah waxaa dhici jirtay adiga oo raashinkaaga lacagtaada haysta ganacsigii in aad suurtagal ku noqon weydo ama laga hor istaago in aad la soo degto si taas aysan u dhicin oo meesha looga saaro xukuumaddu tallaabadii koowaad ee qaatay wuxuu ahaa in la furfuro dhammaan arrimaha ganacsiga oo dadku sida ay doonaan ay u ganacsadaan iyaga oo raacaya shuruucda u taala deegaanka iyo dalka in aad la soo degi karto waxa aad adigu u baahan tahay adigoo raacaya shuruucda deegaanka iyo dalka u taala adigoo labadaba raacaya inaan adigana lagugu xadgudbin adna aadan ku xadgudbin cidna aadan ku xadgudbin waxaad rabta la soo degto waxaad rabta ka ganacsato si xor ah nolol xor ku noolaato si dhammaan nolosha dadku ay u wada korto marka aynu ka fikirno inaan dhammaanteen wada kobacno ayuu deegaankeenu hormarayaa in hal ruuxi kobco ama hal ruux la koriyo horumar lagu gaari maayo marka taas ayaa aad iyo aad loo qaatay wax badan baana laga qabtay howlahaas dhammaan ganacsiga waa la furfuray waxyaabo badan waa laga qabtay sidoo idin sheegay Cabdisalaan waxaa jirta iyadana dhanka maalgashiga inaan iyadana xagga warshadaha aan ka wada shaqayn doono
oo qurba joogta aanu ka wada shaqayn doono oo warshadihii iyo maalgashigii shuruucdoodii aad iyo aad loo fududayn doono si ay u badato maalgashiga deegaanka iyo qurba joogto oo ay maalgashi badan sameeyaan warshado badanna u keenaan waxqabad badanna ooga sameeyaan waxaa hadda xafiiska wadnaa oo socota oo iyadana hadda gacanta lagu hayaa in la turjumo dhammaan shuruucda jibriyada ama kastamyadu ay ku shaqeeyaan caqabada u badan markaan daraasaad ku sameynay ee dadkeena ka haysata waa aqoon la-aan weeye aqoon la-aan dhinaca shuruucda jibriyada ah ruuxu ma yaqaano waxa uu la soo degayo ma yaqaano wadada u marayo ma yaqaano waxa uu rabo inuu dhoofiyo wadada u marayo waxaa laga yaabaa iyadoo ay oga dhib yar tahay inuu bakeeriga soo dejiyo wado sharci ah inuu u maro inuu halis u geliyo hantidiisii iyo naftiisii iyo maalkiisii inuu u geliyo kontraband geliyo oo uu lacag ka badan haddii uu maanta $50 ama 50 bir lacag u dhiganta 50 kun lacag u dhiganta uu kusoo gelin lahaa inuu ku bixiyo inuu soo geliyo shaygaas 100 kun waa laba jibaar waxaa oga kharash yar oga fudud oga khasaare yar inuu wadada sharciga soo maro laakiin maxaa keenaya arrimahaas waa aqoon la-aan dhinaca sharciyada ah waxaan wada shiray customka waxaan wadnaa insha Allah turjumaad dhammaan sharciyada in lagu turjumo waxaa jira barnaamijyo la bilaabay oo ganacsiga ah oo maalinka oo isbuucii maalin ka baxa TV-ga deegaanka oo lagu wacyigelinayo dhammaan bulshada dal iyo dibadba si loo fududeeyo caqabadihii haystay dadkeena xoolaha deegaanku waxay ku baxaan intooda badan kontraband maxaa sababay weeyta xoolaheenu maxaa sababay oo kontraband ugu baxayaan waa aqoon la-aan iyo dhibaato dhinaca sharci darrada naga haysta xoolihii buu ruuxii sharci darro ku marinaya wadadii hadduu meeshii uu rabay geeyana suu rabay uguma faa'iidayo haddii laga qabsadana khasaaro ku geliyaa laba goora waxaan rabnaa waxa in la fududeeyo adiga oo gurigaaga jooga in aad hesho ganacsigii oo sidii aad rabtay aad shaygaagii u samayn karto waxaa socoto qorshayaal aan rabno in aan wax soo saarka deegaanka oo dhinaca ganacsiga ku xoojino oo dhammaan sector bureauska ama xafiisyada ay khusayso laga wada hadlay oo kobaca deegaanka beeraha la xoojiyo si wax soo saarka iyo ganacsigu u bato waxa ugu yar ee quuto daruuriga ah ee maalin kasta laga ganacsado waxa ugu badan shayga ugu yar marka aan tusaale ka soo qaato xabuubka waa waxa lagu darsado daily raashinka la cuno xabuubka deegaankeena laga isticmaalay maalin kaste waxa laga keenaa deegaanka dariskeena iyadoo aad ogtihiin inta webi ee deegaanka marta inta dhul beereed aan leenahay waxaan samayn karnaa in deegaankeena intaanu beerano oo inaku aynu soo saaro oo deegaanka isku filnaano in aynu waliba u dhoofino wadamada dariska ah ama deegaanada dariskeena waxaan noqonay deegaanku 10 sano u dambeysay dadku waxay noqdeen in dad maskaxda iyo horumarka iyo dhinac kasta laga curyaamiyay sababtoo ah meel wax uun loo soo dhoofiyo wax uun lagu shubo laakiin aan waxba la soo baxaynin waxba dhoofinaynin gacmaha laga qabtay dhulkeena oo wada beeraa wada biyo ah inayna waxba dhoofin karin marka waxaa wadnaa qorshayaal ballaaran oo socda waxaan qaban doonaa insha Allah oo lidinka soo qayb gelin doonaa cid kasta oo imanaysa diyaar loo leeyahay inaan ka soo qayb gasho shirweyne ganacsi shirweynaha ganacsiga waxaa laga hadli doonaa arrimo aad iyo aad ballaaran waxaan aad iyo aad u jeclahay shirweynaha ganacsiga in aad ka soo qayb gashaan shirweynahaas wuxuu noqon doonaa shirweyne ganacsi oo sanadla ah oo sanadkiiba mar la qabto oo laga doodo caqabadaha jira iyo meesha la gaaray iyo wax la rabo deegaanku halka dadku ay rabaan iyo wixii caqabada hortaagan iyo sida loo fur lahaa laga doodo oo dhammaan xukuumadda mas'uuliyiinteeda ugu sarreysa iyo dhammaan ganacsada dal iyo dibadba ay ka soo qayb galayso marka waxaan aad iyo aad ugu hanweynahay inaad shirkaas timaadaan waana lidinku maxsuumi doonaa TV-ga iyo meelo badan iyo media-hana waa laga sii dayn doonaa insha Allah marka uu gaaro marka qurba joogta doorkeedu waxaan rabnaa in uu noqdo mid arrimaha aan sheegay oo dhankaba waxaan rabaa in aad timaadaan oo aad dadkiina tustaan qaabka wax loola soo baxo idinku aad tirahdaan war waxba yaan dibad xabuub la idinka keenine xabuub iyo leen iyo bariis ba halkan uu ka baxay halkan aynu beerano oo idinku dhoofisaan annaguna waxaan sameynaynaa on diyaar u nahay dhammaan ganacsatada deegaanka
in aanu ku qasabno in ay waxa beeraha deegaanka ka soo baxa gataan oo aynan meel kale wax ka keenin. inta aanu arkayno ama uu jiro nin beer intuu samaystay raba in laga iibsado oo diyaar oola ah oo ma ogolaanayno nin ganacsadihii inuu dibadda wax ka keeno. shayga laga heliyo shayga wadanka lagu sameeyo ayaanu priority-ga horumarka iska leh. wixii wadanka laga waayay dibadda la keeno dibadda ha loo dhoofiyo waxa deegaanka yaala ha la dhoofiyo marka un baynu horumar gaadhaynaa isku filnaanshana gaadhaynaa deegaankuna uu helayaa dakhli ku filan oo wax ku qabta helayaa. qurba joogtu way jirtaa qurba joog badan oo wax ka qabatay arrimaha deegaanka oo maalgashi samaysay oo waxyaabo badan qabatay sida rees Sweden oo kale waxaan ogahay ninka loo Cabdirasaaq Cabdullaahi Sheekh Bixi inuu wardheer ka dhisay hotel hadda kullu hotelku igu yimiday xogaa hadalaan isweydaarsanay hotelkii intuu dhisay waliba geel una gatay wuxuu hadda ii sheegayay geeliisi caanihiisi la dhahala laayahay warshad caanaha wuxuu ku xiro inuu geeyo. aad iyo aad baan Cabdirasaaq ayaan ugu mahadnaqayaa. waxaan ku bogaadinayaa waxa uu sameeyay waxaan aad u jeclahay inuu la wadaago qurba joogta kale ee reer Sweden arrimo badan oo noocan oo kale ayaa socda. marka aniga oon hadalkayga ku sii dhaaranayn waxaan leeyahay wixii intaas dheer waxaanu idin nahay mar kasta diyaar baan idin nahay soo dhawaadana idin leenahay noogu imaada deegaankii shuruucda iyo waxyaabaha aad tabaysaan oo dhan annaka waa socona xafiiska ganacsiga iyo qurba joogta diyaar baanu iyo maalgelinta diyaar baanu idin nahay. sida uu idin sheegay Cabdisalaam waxaad jirto website la wado oo labada dhinac kastaba la wada xafiisyada oo aad ka akhrisan doontaan waxaad u baahan tihiin. hal man hadalku ma jiro waxaan rabay intaanan ka bixin idin sheego waxa hadda la sameeyay oo socda waanu idinku soo noqon doonaa aniga ninka laho walaalkay Cabdisalaam halkan aanu idinku iman doonaa mar labaad insha Allah. waxaanu qabsan doonaa shirkan ka balaaran shirkaas waxaa laga hadlayaa oo rabnaa inaad doorkiina ka qaadataan bangigii ugu horeeyay deegaanka oo u yeesho deegaanka oo dad Soomaaliya ay iska leeyihiin. bangigaas waxaa la dhahaa Shabeelle Bank waa bangi weyn waa bangi ganacsi wuxuu wax ka tari doonaa horumarka deegaanka waxaad ka qaadan doontaan deymaha wuxuu idin sameyn doonaa investment waa bangi ku shaqeynaya ama ah Islamic bank weeyaan. marka waan idin dulmaray bangigaas iyo shuruucdiisa oo faahfaahsan iyo qaabkaad uga qayb qaadan lahaydeenba mar labaad aniga iyo Cabdisalaam iyo team ila socda waxaanu rajaynaynaa inaan Sweden idinku nimaadno shir balaaran oo kaga hadlayna arrinkaasna aynu halkan kaga wada hadalno inagoo waqti fiican qaadanay bangigaana aanu si fiican u jeedino. waxaan rajaynayaa inaad dhammaan gadan doontaan sheerasha bangiga aad reer Sweden inay qaadan doonaan sheerasha ugu badan oo bangiga iyagu ay yeelan doonaan haddii la yiraahdo. aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan ku wareejin insha Allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.